ina kan waxun ka baranay dalka Morocco waa qaran muslim ah oo ku yaala waqooyiga Afrika xuduud wadaagna la ah badaha Atlantic iyo badda dhexe ama Mediterranean Sea sida u barnaamijyo ama muuqaalo berber ayaadna aysan labada midkood ugu yeeri kartaa waa dal ay si isku mid ah u saameeyeen dhaqamada Carabta iyo kuwa Yurubiyaanka labaduba haddaad ku cusub tahay boggan hubi inaad follow tiri lana si wadaag muuqan saaxiibadaada mahadsanid tirada dadka Morocco waxa lagu qiyaasaa 36 milyan oo qof waa boqortooyo wadankani balse leh ra'iisul wasaare hogaamiye golaha fulinta hase yeeshee ku soo dhawow sideeda xaqiiqo ee aynu Morocco kaaga warinayno kow Morocco waa goobta lagu duubay filimada adduunka ugu badan waa maangal inaadan tan ka ogaan la'ayn waa haddaad daawatay musalsalka caanka ah ee Game of Thrones waa Morocco halka lagu duubay haddaadan kaas daawana waa dhab inaad filimo badan oo Eurobiyaan iyo Hollywood kala fahantiisu sameeyeenba aad ka dhex aragtay deegaanka Morocco sida Mission Impossible, Babel, Kingdom of Heaven ama The Mummy Returns Casablanca iyo filimo kale oo caan ah kuwa oo dhammaantood halkan Morocco lagu duubay labo Morocco waxay farsamo ahaan ka wada tirsan tahay qaaradaha Yurub iyo Afrika kaliya 8 mayl ayay xadka Yurub gaar ahaan jasiiradda Gibraltar u jirtaa Morocco sababta awgeedna waa tan dhaqamada reer Yurub saameynta togan ugu leeyihiin Morocco gaar ahaan Isbaanishka oo halkan laga heli karo af iyo dhaqankiisaba saameyn kale oo xoogan Faransiiska ayaa ku leh Morocco oo isagu gumaystay dalkan luuqadiisana halkaasi looga hadlo 3 kala duwanaanshaha dhaqan iyo af ee bulshada dalkan ugu yaraan 4 luuqadood ayuu ku hadli karaa qofka Moroccaanka ahi sida Carabi, Faransiis, Berber iyo Spanish la fahantiisa tusaale ahaan marka aad joogto caasimadda dalka ee Rabat waxaad moodaa inaad joogto meel ka mid ah gudaha Faransiiska waayo halkan afkii iyo dhaqankii Faransiiskaba waad ku arki kartaa dhinaca galbeed ee dalka waxa badanka looga hadlaa afka Isbaanishka waana taas mid muujinaysa saameynta xoogan ee gumaystuhu halkan ku yeeshay 4 Morocco qarnigii 20aad waxa ay yeelatay qalinleyda ugu caansan adduunka xudun ahaanshaha Morocco ee dhaqamada kala gedisanay waxa ay sahashay in qorayaal badani rug ka dhigtaan dalkan kuwa oo halkaas ku soo saaray buugaag caan baxay iyo halabuuro kale oo meelgal noqday William Brew, Brian Jocelyn iyo Tennessee Williams ayaa ugu caansanaa qalinleydii kontonaadkii ilaa 60maadkii loogu hadalhaynta badnaa gudaha Morocco iyo caalamka intiisa kaleba 5 dalka Morocco waxa uu ahaa kii ugu horeeyay ee aqoonsaday qarannimada Mareykanka waa arrin isweydiin leh in Mareykanka isaga haatan aqoonsiga loo daba fadhiyo la fahantiisa Morocco ee ixtiraaf siisay markii uu bilowday kacdoonkii dawladnimada Mareykanku waxa burcabadeed u bilowday isla goortaas beegsiga maraakiib ganacsi oo Mareykanku lahaa kuwa oo marinkoodu ahaa badda Atlantiga hase yeeshee Sultan Maxamedkii saddexaad ee markaa Morocco ka talinayay ayaa sheegay in isagu qaatay mas'uuliyadda ilaalinta maraakiibtaas saaxiibtinimada Mareykanka iyo Morocco waxa la saxiixay 1787 welina Morocco waa saaxiibka ugu qadiimisan ee Mareykanka 6 jaamacadda Carawin ee dalka Morocco waa tan adduunka ugu qadiimisan tani waa jaamacadda adduunkeena ugu da'da weyn sida la wariyay taasoo la asaasay markii taariikhda miilaadigu ahayd 859 waxayna ku taal magaalada Fes ee gudaha dalkan taariikhda durugsan ee la dhisay ayaana ka dhigaysa duqda jaamacadaha dunida saameyn weyn ayayna ku leedahay taariikhda aadanaha 7 boqorka Morocco waa qofka shanaad ee ugu hantida badan Afrika qiimeyn ay samaysay shabakadda Forbes sanado ka hor ayaa lagu sheegay in boqor Maxamedka 6aad ee Morocco yahay qofka shanaad ee ugu hantida badan qaaradda Afrika ka oo shabakadu hantidiisa ku sheegtay 5.7 bilyan oo dollar sanado ka hor sidoo kale waxa uu qiimeynta Forbes ka galay kaalimaha ugu sareeya ee boqorrada adduunka ugu taajirsan 8 boqortooyada maamusha Morocco waa tan labaad ee ugu mudaxilaadka dheer adduunka si kale haddaan u dhigno 1631 ayuu soo bilowday xukunka boqortooyada ka talisa guriga Alawi ee saldanada Morocco boqor Maxamedka 6aad ee haatan ka talinaya Morocco waa kan 23aad
taas ayaana ka dhigaysa boqortooyada labaad ee ugu cimriga dheer, tan koowaadna waa boqortooyada Japan.